waxaad moodaa saxaafadeena iyo dadkeenu inay aad ugu fogaadeen farmaajo looma hayso dambiyadii halkan ka dhacay oo de wax hawla iyo xil ku lahaa may jirin waxaase loo aanaynayaa dawladdii baad dhaxashay Soomaaliya hore markaa bogsiinta iyo soo dhaweyntaad wax ka leedahay ad ka garawdo laakiin se dambi isaga loo haystaa oo la leeyahay adaa sameeyay loomana aanayn karo anu markaas aan hoos ka xariiqaya maxamed siyaab darrad la dhalatay looma aanayn karo waa gef waana khalad haddaynu aanayno maxamed siyaab intii la dhalatay maxamed sheekhan eega ninkan kan cusbitaalka ka dhisay de maxamed siyaab buu la dhashay gef bay tahay taas inta laga daayo oo dadka afka loo gelin ninka adeerkii ayaan laayano haysanaa midda kale maxamed waxaan yar kuftamay maxamed abdiye de ninka xididna waynu nahay technically caruurtiisu haday dalbato maanta waa reer Somaliland caruurtiisu haday dalbato waa reer Somaliland markaan isaga la garamayno inuu ku ekaano xukuumadiisan waxaynu ka tirsanayno xukuumadan maanta joogto madaxda ka yahay oo nuu aragno inay ka leexatay dariiqii isu soo dhaweynta waxa jiro kale xukuumadiisana maxay qaaday strategy bay qaaday la counter secession strategy in Somaliland la go'doomiyo in meel walba laga soo xiro in ninkii salaamaba la maago taasina wada hadal la waan doonayaa falkaana waan gelayaa Qubrus waxa ka socda waa ogtiin laba qaybood bay noqotay dawladdii Greega soo farageliso doonaysa inay inqilaab niman janana sameeyo inay idaadan waxaan ku darsanaynaa Greega 74kii Turkigu waa kii intii qabtay maanta waa laba dawladood laakiin dawladdii Qubrus ayaa title-kii haysatay inay Qubrus madisho dagaal cad bay ku qaaday exactly waxaad moodaa buugga dawladdaas kula dagaalamayso qaybta Turkiga inay tii koobigeedii qaateen gudoomiyaha ku-meel gaadhka xisbiga mucaaradka wadani ayaa sidoo waxa uu ka sheegay mar uu maanta ka qayb qaadanayay dood ay lahaayeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ee uu ka tirsan yahay Boqor Axmed Cabdi 5TV Hargeysa.